xasbunallahu wa nicmal wakiil. Baraha bulshada waxa la wareejinayo ma ahan wax aad sii milicsan karto, balse daawade xaqiiqda dhabta ah ayaan muuqaalkan idinkugu sharaxi doonaa. Maxaad kala socotaa in Cawaale Aadan Daahiye oo ah fanaan reer Jabuuti isla mar ahaantaana u heesa dhammaan Soomaali weyn oo idil uu ku jiro isbitaal, isla mar ahaantaana lagala laabtay baasaboorkii Kanadiyaanka ahaa. mid la dheelsan kara maaha, noloshiisa meeshii ugu xumeed ayay maraysaa. isbitaal ayuu ku jiraa, wuxuu inooga baahan yahay inaan u ducayno Soomaaliyeed. Cawaale Aadan haddaad arki jirtay isagoo waxa weeye bulshadiisa waxa u heesa dadku jecel yihiin, maanta garab ayuu nooga baahan yahay. Haddaba xog xasaasiya iyo baraha bulshada muuqaalada la wareejinayo daawadayaal waxa ka jira ayaan muuqaalkeennan ku qaadaa dhigi doonaa. Fadlan ku soo biir channelkeennan Ducaysana Media oo subscribe dheh sida aad noola socoto mar kasta, oo follow the page-keena Ducaysana Media. Muuqaalada aan soo gelinana daawade la garee sida ay u baahan. kulanti habboon saaxiibada aynu jecelnahayow, meel kastoo aad dunida daafeeda ka joogtaan ku soo dhowaada channelkeena Ducaysana Media oo alaaba aan idinkugu soo gudbinno warbixinno idin xiise geliya iyo page-keena Ducaysana Media. Saaxiibayaal, muuqaalkeennan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa baraha bulshada waxaa la isla dhexyaacayaa in Cawaale Aadan Daahiye oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed uu ku jiro mid ka mid ah isbitaalada waaweyn ee ku yaalla gudaha dalkaasi Jabuuti, isla mar ahaantaana sababta la xiriirta arrinkaasi ay tahay in Cawaale Aadan buuq lagu furay, isla mar ahaantaana lagala laabtay baasaboorkii Kanadiyaanka ahaa kadib markii ay buuq isku fureen xaaskii hore uu qabi jiray iyo weliba xaaska haatan uu qaba ee lagu magacaabo Mrs. Xiis. Baraha bulshada waxaa la hadalhayaa maanta saaxiibayaal saacadihii ugu dambeeyey fanaankan caanka ah ee Cawaale Aadan. Wararka qaar oo aan u helnay ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda alfanaan Cawaale Aadan laga soo dayrinayo, isla mar ahaantaana isbitaal weyn oo ku yaalla gudaha dalka Jabuuti uu ku jiro. Mrs. Xiis iyo Cawaale Aadan ayaa dhowaanahanba socdaallo ku marayay qaybo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya, iyadoona sidoo kale ay ku qabteen magaalada Muqdisho show inaba aan caadi ahayn. Haddaba muuqaallo kala duwan ayay soo geliyaan baraha bulshada, balse daawade maxaad ka milicsan kartaa ama aad ka dhadhamin kartaa muuqaalkan ay soo duubtay sawjada u dhaxda fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo Cawaale Aadan ee lagu magacaabo Mrs. Xiis. ila daawada muuqaalkan. فضيدي مقاضي كرو فعي موالي كرو أنا اسفرو استراء أنا اسفرا روح كلي فصح كما تلبذو. كما هاتسني daawashada muuqaalkan, fadlan sidaa noola socoto inagu soo biir oo page-keena Ducaysana Media follow dheh, subscribe saar YouTube-keena Ducaysana Media. Kuma hadsani daawade.